waxaa dhawaanna soo gaadhay oo wiigan nala joogay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir oo runtii jaanis aan u helnay dadka Seattle Washington iyo nawaaxigeeda degani inay ku soo dhaweeyaan kuna farxaan xildhibaanka iyo musharaxa madaxweyne oo uu urdayo waxay ahayd maalin aad u farxad badan uu ka soo qayb galay dadkana waqti kula qaatay aan idhaahdo maalintii loo dabaaldegay 26 June iyo 1 Luulyo waxaanay halkaa isbarasho badani ku dhex martay bulshadii deganeyd gobolkan iyo nawaaxigiisa ee ka soo qayb galay maalinta qaaliga ay u dabaaldegayeen waxaa kaloo haddaba iyaduna xasuus aad iyo aad u mudan habeennimadii oo la isugu tagay hoteelka weyn ee ku yaala xaafadda Takwila oo kamid ah xaafad kamid ah Seattle Washington oo book sign-kii uu galayay iyadoo su'aalo badan laga weydiiyay dadkuna ay u riyaaqayeen buuggiisa la yidhaahdo adkaysi sababaha u qoray iyo waxa ku kalifay iyo waxa uu hiigsanaya maanta waxay tahay haddaba magaaladu aad bay ugu riyaaqday musharaxa madaxweyne aadna uu soo dhaweysay waana ku farxeen wajiga siyaasadeed uu taagan yahay isbedelka ay la rabaan wadankoodii iyagoo su'aalo kala duwan aad ugu geysanaya bal inuu ka jawaabo tusaana waxyaalaha ay doonayaan fikrad ahaan ka duwan ee ay jecel yihiin inay faraan ama kula taliyaan intaba taasina ahayd mid isoo ka qaatay oo yiri waan doonayaa dad iyagu ii sheegay waxaan ku gardaranay ama waxaan ku khaldanay si aan arrintaana u saxo runtiina halkaa waxa ku soo ururay oo lagu soo gabagabeeyay habeenkii wanaagsanaa ee wacnaa ee cabdiraxmaan cabdishakuur xildhibaanka ahaa ahna musharaxa madaxweynaha waddanka Soomaaliyeed